aan ku bilownay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan ka digtay duufaan culus oo loogu magac daray Liil taasoo ay sheegtay inay ku wajahan tahay magaalooyinka xeebaha ku yaala ee Soomaaliya. Hay-adda waxay si gaar ah u xustay in laga yaabo in dabaysha ay saameyso magaalooyinka Muqdisho, Baraawe, Marka, Jamaame, Kismaayo iyo Badhaadhe. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa digniinta dabayshan uga warramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere. arrinkan aan soo saarnay waa dabcan duufaan ku soo aadan xeebaha Soomaaliya qaasatan xeebaha koonfuro ilaa iyo Banaadir ilaa iyo Jubbooyinka. waxaan filanaynaa inay dhulkaas ay soo gaarto maalmaha soo socdo. waxaan rajaynaynaa inay sida hadda ku socotaa ay ka tabar yaraato, laakiin stiil waxay dhibaato weyn gaarsiin kartaa dadka xeebaha u dhow iyo dadka kalentooda oo fisheriga ah ama mataqaanaa kalluumaysatada ah iyo kuwa ku safro xeebaha Soomaaliya. marka maxay tahay dadku inay sameeyaan ood faraysan? dabcan waxa weeye in laga fogaado meelaha intii ka fogaa karto. dabcan inay dadku u diyaar garoobaan in duufaantaas ay imaan karto. waxaan kaloo faraynaa qolooyinka kalluumaysatada inay maalmaha soo socda aysan badda ay jiraafasada ka joojiyaan maadaama ay baddu kacsan tahay. marka dabcan waxaa kalantoodon leenahay maamulada sida maamulka oo Jubbaland iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaan inay u diyaar garoobaan inay mataqaanaa xaaladaas oo kale soo wajahan karto. waan gartay hadda waxaa dalka ka da'ay roobabkii guga ilaa hadda ma haysan khasaare ay geysteen, haddiise weli ay sii soconayaan maxaad iyagana dadka uga digaysaan? dabcan roobkii guga weli wuu socdaa, khasaaro wuu jiraa, laakiin sidii aan runtii filanaynana wuu alxamdulillah ka sakharan yahay. dabcan waxaan uga digaynaa sidii aan uga digi jirno karantood meelaha ay ugu badan tahay oo dhibaatadu ka jirto ama hadda already saamaysay waa webiyada, labada webi oo webiga Shabeelle iyo webiga Jubba oo beero badan ay ku go'een, hanti badan lagu waayay. marka waxaan uga digaynaa dadku inay ka fogaadaan meelaha biyo mareennada ah oo webiyada iyo dabcan meelaha magaalooyinka aan ognahay inay leeyihiin daadad xooggan ay soo aadi karaan sida Baydhabo iyo meelaha lamidka ahoo Qardho iyo magaalooyinka noocaas oo kaleeto inay dadku aad u feejignaadaan. waan gartay marka laga yimaado digniinaha aad siinaysaan hay-adda ama guud ahaan dowladda Soomaaliya, ma jira wax tabaabusho ah oo ay sii samaysay oo haddii duufaanadaasi ay waxyeello geystaan dadka lagu taageeri karo? waa lagu cusub tahay. markii hore 14 bisha ayaan duufaantan aragnay inay xaaladeedu ay samaysan tahay. ilaa iyo hadda waan la soconay, waxaan u malaynaynay inaysan annaga xaggeena soo aadayn, laakiin hadda waxaan aragnaa in ay nagu soo fool leedahay. marka sidaa darteeday waan u diyaar garownay, waana isku dayaynaa inaan wixii tabara aan ka qaadano. kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Macalin Cabdulle oo u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere. dhinaca kale, sarkaalka ugu sarreeya nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel ku sameeyey taliyayaasha qaybo ka mid ah hay-adda NISA. agaasimaha hay-adda sirdoonka Cabdulaahi Sanbarooshe ayaa talaadadii taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir u magacaabay Cabdifataax Shaaweeyey, halka taliyaha nabad sugidda ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde u magacaabay Cabdulqaadir Xaayow. Muxuudiin Warbac oo soo ahaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir ayaa isagana loo magacaabay kaaliyaha amniga ee hay-adda NISA. tallaabadan ayaa falanqeeyaasha ay ku tilmaameen dadaallo uu taliyaha cusub ku doonayo inuu ku dardargeliyo howlaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay isku diyaarinayso wejiga labaad ee ay ku doonayso inay dalka kaga saarto kooxda Al-Shabaab oo xooggiisa uu sanadkii 2022 ka soo bilowday bartamaha Soomaaliya. haddaba isbeddelka lagu sameeyey taliyayaasha saddexdan hoggaan ee muhiimka ah maxay uga dhigan tahay dadaalada dowladda ay ku xoojinayso sugidda amniga iyo sirdoonka ayaa weydiiyey Axmed Gaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee gobolka kuna sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. run ahaantii waxay ila tahay in ay qayb ka tahay dardargelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka, maadaama taliyaha hadda jooga guud ee taliyaha NISA oo laftirkiisa bedel uu ku yimid
muddo dhow in ammaankii kor loo sii qaado inuu doorto waa sax. marka kolley waxay uga dhigan tahay in dardargelin laga sameeyo ammaankii oo dhiirigelin la sii siiyo, kuwana la dallacsiiyey, kuwa cusubna la keenay. energy cusub ayay helayaan niisa oo ammaanka kusoo biiraya, oo khibradooda kusoo biiraya. shakhsiyaadka hadda la magacaabay oo sida nabad sugidda loo magacaabana waxay ahaayeen dhalinyaro kasoo shaqeeya dalka runtii duruufo adag. waqtigii bilowga ilaa al-shabaab ay dalka ay soo galeen dhalinyaro kasoo shaqaysay. marka mar kastaba waa kor u qaadidda iyo adkaynta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka dad wax ka qaban kara inay yihiin ayaan saas daraaddeed in loo bedelay ayaa laga yaabaa oo isbeddelkan u yimid. waa gartay. marka isbeddelkan muxuu kusoo kordhin karaa hay-adda nisa? taliyaashaan la magacaabay waa taliyaal hore uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda, waqti adagna runtii kusoo shaqeeyey, dhaqanka iyo al-shabaab iyo dagaalkoodana wax ka fahmaya. marka waxaa laga yaabaa inuu door biday inuu energy sii geliyo oo wejiga cusub uu la yimid iyo energy cusub ay isla jaan qaadi karaan. saasay la tahay si badqabka bulshadana loo adkeeyo. haddana waxaad la socotaa in abaabul lagu jiro sidii mar labaad loo maaragtay howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay wejigiisii labaad bilaami doono. marka abaabulkay qayb ka tahay ayaan isleeyahay in la abaabulo ciidamadii dibadhis lagu sameeyo, la diyaariyo. saas ayaan isleeyahay isbeddelka oo ku yimid taliyuhu uu doorto. iyadoo muddooyinkan ifafaalo wanaagsan oo ka soo rayn ah laga muujinayo ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho, taasoo kaalin muhiim ah ay ka qaadatay hay-adda nisa, ayaa haddana agaasinkeeda cusub uu ku dhawaaqay isbeddelkan uu ku sameeyey saraakiisha laamaha muhiimka ah. haddaba maxay tahay sababta ku riixday taliyaha inuu tallaabadan ku dhaqaaqo? waa kan Maxamed Barre oo wax ka qora arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota. waxay ila tahay inuu helo dad isaga la shaqayn kara, isla markaasna leh skillskeeda laga rabay. macnaha waxa waaye hay-adda sirdoonka number 1 shaqooyinka aad ayay u fudud yihiin markaad haysatid dad kula shaqayn kara oo isfahmi kartaan, isla markaasna isku si weji aad u wadaan macnaha howlaha. marka anigu waxay ila tahay number 1 inay tahay midda ku qasabtay in uu helo team, uu dhiso team cusub, teamkaasayto oo wada shaqayn weyn ka wada dhexayso, isla markaasna suga ammaanka. sababtoo ah inuu helo dad isaga la shaqayn kara, isla markaasna macnaha qabaan information sharing, dad macnaha waxa waaye wada wadaagi karo hawsha ama qabashadeeda ha ahaato ama sirta hawsheeda ha ahaato. midda kale maxaa ku qasbay? waa horey ayaan u sheegay. waxaa ku qasbi kara arrin noocan camala waxay tahay in uu helo dad uu ku kalsoon yahay, la shaqayn karo, isla markaasna la gaari kara ama la jaan qaadi kara goolka uu damacsan yahay inuu gaaro. guud ahaan dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa naga hintaa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.